وحالي فيك هالكي ساعة مركي لا فوري المغرب في عيد هالدغال ku dhacay see wax u dhaceen waxa weeye waa taqaanaa nimanka khawaariista maalmaha asxaabta ay guuleysatay ya maalmaha muslimiintu ay guuleysatay ay gaalada la dagaalamayay bay soo magacaabaan muslimiin ayaan afuraysayna soo weerareen waa gartay xaggay weerarka ka soo qaadeen weerarka walaalow bariisma iyagu degaayeen oo aan ku tuumayno dhankaas degmada badhaale naga xigta ayay ku soo qaadeen weerarka kabacdi maxaa dhacay kabacdi waxaa dhacay dagaal baa dhacay dagaalkuna wuxuu ka dhacay degmada kulbiyo meel afkeeda oo magaalada dhexdeeda aan ahayn ilaahayna wuu jabiyo ilaahay guldarru ka raaciyey ilaa 6 nin oo meyda way ka tageen meesha way kaga tageen iisoo sheegay nin nool oo riyowna waanu ka qabanay iyagina saasay ku jareen waa gartay waxaad ii sheegtaa dagaalku muddo intee leeg buu socday muddo aduu 1 saac gudihiisa socday dagaalku marka ma saldhig ciidan bay soo weerareen mise magaalada kulbiyo bay weerareen may walaale magaalada mayna weerarin magaalada ciidanka ka koreeyay oo magaalada ciidanku magaalada ma dhex degado afarta koonama fariisimo qaraban bay ciidamada ku leeyihiin ciidamo amisooma iyo ciidamada soo sheegay maamulka Jubbaland oo daraawiish ayaa degan meesha oo aan hal ciidan ahayn dhowr ciidan ah marka ciidamadaas sahan joogta oo horey la geeyay ayay salaan kuwii baana insha Allah taala ka guuleystay waana jaleen nimankaas waa gartay waxaad ii sheegtaa haye soco haddana fi goodiba weli lagu dulmaqayo ciidamadooda daba socdaan insha Allah taala intooda kale inaan soo qabanaan insha Allah waa gartay haddii idinku ekaano dagaalka xalay dhacay waxaad ii sheegtaa sida aad ku qabateen xubinta ka tirsan al-shabaab xubinta walaala waxaan ku qabanay ninka wuxuu ahaa nin dagaalamayo raggii dagaalamaya kamida nimankan wixii ka dhintay way ka carareen wixii ninkana dhaawac buu ahaa isagoo dhaawacay isagana ka carareen waa gartay marka halkeed ka soo qabateen ninka dhaawaca ma isagoo sii cararaya mise isagoo meel looga tego meel jiif meel buu jifay ninkan markii kan lug buu ka jabnaa niman meydii asagaas meel yaalay wayna ka carareen ninka ilaa 5 qori oo qoryaha ku dagaalamayeen oo ka qabsanay iiga waran marka ninka aad qabateen iyo sida aad ka yeelaysaan iyo wuxuu idiin sheegay annagu walaalow ayaga kuma dayanayno dad muslimaan nahay ruux ashaadanayo oo ashaadada qirahayo inaan dilo nooma banaano haddayna iyagu aynan soo weeran ma weerarno wayna dhibaateeyaan islaamka ilaahay bay dhimaan ummadda ilaahay oo dhan bay dhimaan nooc kastoo tahay muslimiinta ay ugu sii daran yihiin waad og tahay annaga marka isoo sheegay kii dhaawaceen qabanno waan daaweynayna waan xanaanaynayna kii isoo sheegay nagu soo duulana dee xabadda hadday la tagto nasiibkiisa hadda xagee buu ku sugan yahay ninka dhaawaca dowladda maamulka Jubbaland gacantiisa ku sugan yahay muxuu idiin sheegay weerarkay soo qaadeen iyo dadkas weerarka soo qaaday tiradooda ujeedada weerarka dee bisha Ramadaan waa taqaanaa way beegsadaan ummadday beegsadaan ama qarax la beegsadeen ama dhagar kale hala beegsadeen inay ruux muslim dhibaan oo ay isoo sheegay ilaa Muqdisho ilaa iyo meesha aan hadda joogno ilaa iyo Soomaaliya meel aynan qarax aan ka sameeyay ama dhibaateyn ma jirto adeenka 17 bedel la yahay aad ogtahay muslimiintu ay guuleystay way heerin hore ahay 3 meelood oo la fashiliyay oo Jubbaland ka tirsan bay soo weerareen 3 waa lagu fashilay oo ku guul daraysteen marka waxyaabaha bay kamid tahay oo isoo sheegay ay bisha Ramadaan ay iyagu ay cibaado ay ka dhigteen ruux muslim oo la dilayo Soomaaliya oo cibaado laga dhiganayo meel ka soo gashay inta ma garanayne 3 meelood ay weerareen waa kuwee 3 meelood bay soo hujumeen oo weerar ku soo 3 waa la fashiliyay guuldarra ka raacday hub iyo ciidan farabadan waa laga laayay waa ceel waaq bilguduud iyo biroola meel iyo biroola degmada ka tirsan waa gartay marka ramadaanta inta ka dhiman weeraro kale miyaad filaysaan hadda waa saas Ramadaan iyagu waa dhaqankooda inay islaamka dhibaateeyaan dadka Soomaaliya dhibaateeyaan ruux Soomaali afurayo la weerarayo waa dhaqankooda Soomaa annagu si Ramadaan iyo Ramadaan la'aan waa cadowga ummadda weeyaan waa cadowga ummadda Ilaahay samaystay waa cadowga muslimiinta waan diyaar baan u nahay inaan ficilno wayda aanu baabiino waxaad wax yar ii sheegtaa marka dagaalkan ma waxa galay ciidamada maamulka Jubbaland kaliya mise ciidamada Kenya way kula jireen AMISOM ma walaal wax ciidan oo kala soo galay ma ciidanka u horeeyay Jubbaland daraawiishta Jubbaland ayaa nimankaas tirisay oo baabiisay ciidamada kalena ma ay ku soo gaarin madara fuulweelkooda waa iska careen waxaan xaq ku soonin